boqol iyo konton qoys oo danyar dabku ka dansanaa ahaa oo ku nool gudaha degmada Godonlebe ee gobolka Galgaduud kuwaas oo isugu jiray naafo duqow iyo dad liita oo danyar ah ay guddiga gurmadka abaaraha reer Xaji Saleebaan uu wehelinayo xogayaha degmada Godonlebe Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cumar ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha reer Xaji Saleebaan maantay u qaybiyeen deeq raashin oo ay la soo bixeen dad muxsiniin ah uguna talagaleen in dadka liita ay afur ka sii dhigtaan qoysaskii liitay ee ka faa'iideystay deeqdan afurka ayaa waxay mahadcelin iyo duco u jeediyeen dadkii muxsiniinta ah ee deeqdan afurka la soo baxay sababta waxay cagsan liida hay dadkii sadaqada la soo baxay xaalada Allah u gargaaraan lan hay waxana ilaahay u siyaasho waxaan Allah basiyo xogayaha degmada Godonlebe Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cumar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadkii liitay ugu mudnaa loo qaybshay raashinkan afurka isagoona sheegay inay weli aysan kow iyo laba joogin quudinta dadka liita ee ku sugan gudaha degmada Godonlebe ee gobolka Galgaduud loona baahan yahay in gargaar degdeg ah lala soo gaaro maanta waxaan joognaa degmada Godonlebe waxaan halkaan isugu nimid inaan maanta dad danyara oo 150 qoys aan raashin u qaybino raashinkaas oo naga soo gaaray guddiga abaaraha reer Xaji Saleebaan oo anagu xubin ka nahay sidaad la socotaan dadkan waa dad abaar iyo duruuf guud ay hayso waxaan maanta soo gaarsiinay 150 qoys oo qoyskii uu helayo rubacyo raashin ah oo habeenno ay ku dhaxmeeyaan 150 kaas qoys ma ahan inay 150 ka qoys kaliya u baahnaayeen waa 150 kii qoys ugu liidatay dadka ku nool degmada Godonlebe waa 150 kii aan isniri waa dadka ugu duruufta badan ugu liita ugu mudan in wax la siiyo maantay aan u soo xulnay waxaan halkaan uga mahadcelinaynaa guddiga guud ee reer Xaji Saleebaan oo anagu aan qayb ka nahay deeqdan gurmadkaana soo gaarsiiyey sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadkii muxsiniinta ahaa ee sadaqaystay ee maalkooda ugu talagalay in dadka abaaraysan tabaalaysan inay la soo gaaraan waxaan leenahay ajri xasanaad ilaahay idinka siiyo wixiina ilaahay idin barakeeyo baahidu waa ka badan tahay 150 qoys iyo 200 iyo 300 iyo 400 waxaan leenahay dadkan ilaa 500 dad ka badan oo ka liita ama la mid aha jooga oo ka soo xulnay meeshii idinku sugayaan diraacdii ama abaartiina waa si laba jibaarantay wili way socotaa waxaan leenahay qof kasta oo muxsin oo ilaahay wax siiyey dadkan masaakiinta ha la soo gaaro dadka madaxda ee dadkan mas'uuliyadooda ilaahay u dhiibay reer Xaji Saleebaan waxaan leenahay dadkiinii abaara ku habsatay duunyadii sidoo kale abaara haysata soo gaaraan leenahay gurmadkiina sugayaan haddii aan ilaahay roob siin oo roob degdeg ah ilaahay siin xaaladoodu ma fiicna mar kale waxaan u mahadcelinaynaa guddiga gurmadka abaaraha reer Xaji Saleebaan waxaan leenahay aad u mahadsantihiin deeqdii yarta ahayd ee loo soo dhiibay Godonlebe ee loogu talagalay in 150 qoys oo danyar la siiyana waa soo gaarsiinay wixii ay gaartay oo aragtideena ay nala noqotay oo isleenahay waa dadkii ugu liitay aan u soo xulnay mar kale waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo ka qayb qaatay gurmadkan qof kasta oo maalkiisa ku soo sadaqaystay qof kasta oo soo wada waxaan leenahay ajri xasanaad Allah ka siiyo 10kii dambe Ramadaanna waa lagu jiraa maalmo sadaqadu ay fadli badan tahay maalmo wixii aad la baxdaahu ay la hubo in ajir laga helayo ayaa lagu jiraa waxaan leenahay intii kale dadkii danyarta ahaa ee kale intaan laga soo xulay maan intii kale waa idin sugaysaa gacantiina sugaysaa soo gaara maanta waxaan reer Godonlebe soo gaaray 150 qoys oo qoyskii oo danyar ah oo dadka liita kuwa ka sii liita lagu soo xulay maanta oo le afurka loo siiyo deeqda yartaana soo gaartay qoys waa 2 rubac iyo caag saliid cadday ah way soo gaartay ciddii mudnayd oo islaam waa mudan tahay ciddii la baxday ajar Allah ka siiyo ciddii gaartay xagma shifaa Allah uga dhigo ilaahayna abaarta naga saaro waxaan coddeer ku leenahay dadka ilaahay wax u dhiibay iyo dadka mas'uuliyiinta iyo dadka muxsiniinta ilaahay ummadda ma simin ha laga soo gaaro ummadda waqtigii la laabayay sadaqada la joogaa Ramadaanka waqtiga abaarta la joogaa shayguna marka laga faa'iideysto faa'iido leeyahay ka soo gaara u damqada qofta casho haysata qadada qofka ha siiso qofta 3 waqti way qataa laba ha bixiso intaasaan leenahay
إلهي أتخصص عدة شقيقة عدة لبحضة عدة دارنا الله دوايا